daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkan idinkula wadaagno warbixinada xasaasiga ah iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida. fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar. saaxiibada joogtada inoogu xiranna fadlan inoo sharegareeya. barnaamijka waxaan ku eegi doonaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa go'doomiyay waqooyiga caasimadda Kiev. ku soo dhawaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. iyadoo dagaalka Ruushka uu ku hayo dalka Ukraine uu galay toddobaadkii afaraad ayaa sirdoonka milatariga Ingiriiska waxa ay xaqiijiyeen in howlgallada Ruushku ay si weyn u joogsadeen dhammaan dhinacyada Ukraine, halka maamulka Ukraine uu xaqiijiyey in ciidamada Ruushku ay caasimadda ka go'doomiyeen dhinaca waqooyi. marka laga soo tago hadallada sirdoonka Britain, sarkaal Maraykan ah ayaa Al Jazeera u xaqiijiyey in ciidamada Ruushku aysan wax horumar ah oo la taaban karo ka samaynin dhanka Kiev saacadihii ugu dambeeyey. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa ku dhawaaqday inay soo riday 5 diyaaradood oo Ruushku leeyahay oo ay ka mid yihiin 3 helikobtar iyo 2 diyaaradood aan duuliyaha lahayn. sidoo kale wasaaradda waxa ay xaqiijisay in la dilay 2 duuliye oo Ruush ah. saraakiisha guud ee dalka Ukraine ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamada Ruushka ay go'doomiyeen aagga waqooyiga caasimadda ee Kiev. dhanka kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay hal meel ku burburiyeen 11 gantaal oo gantaalada lidka diyaaradaha ah ee dalka Ukraine. Moscow waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushku ay burburiyeen 10 xarumood oo ay leeyihiin ciidamada Ukraine, sidoo kalena ay ciidamadoodu gacanta ku dhigeen gobollo aad u badan. wariyaha Al Jazeera ayaa ku soo warramaya in dab xooggan uu ka dhashay duqeymo Ruushku uu ka geystay degmada Svatoshaniski oo 10 kiiloomitir u jirta bartamaha caasimadda Ukraine ee Kiev. adeega gurmadka degdega ah ee Ukraine ayaa sheegay in kooxaha dabdamiska ay ku adkaatay inay gaaraan aagga dabka uu ka kacay ee Svatoshaniski duqeymaha Ruushka awgeed. xaaladdan oo kale qaramada midoobay waxa ay ka muujisay walwalka ay ka qabto badbaadada dadka rayidka ah ee ku xaniban gudaha magaalooyinka dalka Ukraine, halka guddiga caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ay ku baaqday in la bixiyo waddooyin nabdoon. dhanka Human Rights Watch waxay ku eedaysay ciidamada Ruushku inay si isdaba joog ah u adeegsanayaan bambaanooyinka kalasterka, kuwaas oo laga yaabo sida ku cad sharaxaadeeda ilaa heerka dembiyada dagaalka.